Baba Vanga waa saaxiirada ugu weyn ee loogu dhageysiga badan yahay dunida. Wax badan oo kamid ah ishaarooyinkeeda mustaqbalkuna waxa ay noqdeen kuwa xaqiiq ah ilaa iyada oo nool laamaha istikhbaaraadka dawladuhu waraysi qaas ah ay la sameeyaan. dib u soo bixida cudurka coronavirusku waxaa dib loo xusuustay hadaladii Baba Vanga. saaxiirada Baba Vanga sanadkan 2020 waxa ay sheegtay waxyaabo walwal iyo cabsi badan ay ku jiraan inay dhici doonaan. Where she was getting this information. Is it possible she was able to access some kind of knowledge that's out there that normal people cannot access? horaan Baba Vanga waxa ay sheegtay madaxweynaha 44aad ee USA inuu noqon doono qof madow ah Barack Obama. The 44th president of the United States will be an African American man. Everyone will put their hopes in him. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. sidoo kale waxay horay u sheegtay weerarkii daaraha mataanaha ee Mareykanka. American president will fall after being attacked by the steel birds. Baba Vanga waxaa sidoo kale lagu xusuustaa ishaarooyinkeeda soo ishbixida ururka Daesh iyo qalalaasooyinka Suuriya. Baba Vanga hadaladeeda intooda badan aad ayaa loo qariyaa xukuumadda Bulgaria ayaana haysa. waxaan muuqaalkan kugu soo gudbin doonaa qaar kamid ah hadalada shooga dhaliye ee sanadkan 2020 ee Baba Vanga ay sheegtay. si aan u bilowno muuqaalkeenu haddii aad u aragto in muuqaalada noocan oo kale ah aad wax ka faa'iideyso like saar si aan u aragno cadada tirada daneynaysa mahadsanid. sanadkani Baba Vanga waxa ay sheegtay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump cudur aan la aqoon in dhagaha uu tiri doono sidaasina maskaxda nabar uu uga soo bixi doono. ugu dambeynna Donald Trump sidaasi in uu ku dhiman doono ayay saadaalisay. sidoo kale waxa ay sheegtay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin in shinqow dil ah ilaaladiisa midkood uu u maleegi doono. balse waxa ay raacisay in lagu fashilmi doono ama in lagu guuleysan doono ma ogi, laakiin Putin waa in feejignaan uu muujiyaa. Пойдет отравленный дождь, и животные погибнут, и рыбы. Конца света спасутся лишь те, кто избавится от злобы и зависти, кто сможет стать другим. Ничего не спасет, ни побег в другие страны, ни деньги, только чистота изнутри. Новой столицей мира станет Петербург. Во главе будет человек, который смотрит ясно и говорит четко. Он много повидал, много сделал, но по-настоящему великим станет после конца. asal ahaan Baba Vanga waa qof indhoola oo waxba aanan arag, balse guud ahaan dunida daafaheedu ayaa looga kala imaadaa. xitaa siyaasiyiinta iyo hogaamiyaashii dunida Hitler ayaa la sheegaa in gurigeeda uu soo booqday. saaxiirada Baba Vanga dhaqamadeedu waxaa kamid ah sida la sheegay in daaqadaha hoostoodu habeenkii ay seexato. saacadaha dambe ee habeenkiina daaqadaha ay furan jirtay. waxa ayna sheegi jirtay in macluumaad ay ka qaadato ruuxaan iyo waxyaabo aanan la aqoon. dadka gurigeeda ku soo booqanayana iyadoo aanan arkin ayay sheegi jirtay macluumaad qofka ku saabsan. waxaa sidani dhahay dadka ugu dhow ee guriga kula noolaa. Baba Vanga said that she could see in her mind's eye. And when she would look at a person, she said that she could see their whole life in its totality, complete, from birth through their life until death, as if she were watching a movie. Baba Vanga waxay sanadaha soo socda ay sheegtay in dhulgariir iyo tsunami-gii 2004 mid ka daran bar kale uu dhici doono. guud ahaanna qaaradda Asia wadamo badan oo kamid ah noloshoodu ay soo ciidantirmi doonto sida India, Malaysia iyo qaybo badan oo kamid ah Asia.
waxaa sidoo kale ay sheegtay gebi ahaanba midowda Yurub inuu burburi doono, khaasatanna burbur dhaqaale inuu ku bilaaban doono. sanadka 2043 guud ahaan qaaradda Yurub waxaa xukunkeeda la wareegi doona muslimiinta sida ay sheegtay Baba Vanga. waxay gebi ahaanba taajir noqon doona wadamada muslimiinta. waxaa kaloo cajiib ah ay sheegtay dadka dunidu markay ay yaraadaan ugu dambeyn in dunidu ay ku soo hari doonaan koox yar oo isjecel. duniduna hal caasimad ayay yeelan doontaa, caasimadda duniduna waxa ay noqon doontaa magaalo Ruushka ku taala. waxaana hoggaanka qaban doona qof wejigiisa iftiin uu ka baxayo, wax badanna og. hadalladanina waa qaar ka mid ah kuwii laga duubay Baba Vanga. Новой столицей мира станет Петербург. Во главе будет человек, который смотрит ясно и говорит четко. Он много повидал, много сделал, но по-настоящему великим станет после конца. sidoo kale Baba Vanga waxa ay sheegtay in Shiinuhu uu noqon doono waddanka kaliya ee ugu quwadda weyn dunida. macluumaadka Baba Vanga ay sheegtay sida isugu xigxigaan waa sidan: sanadka 2023 qadka dunida ay ku wareegto isbedel ayaa ku imaan doona. sanadka 2026 wixii ka dambeeya dadka Yurub hoos u dhac weyn ayaa ku imaan doona. sanadka 2028 kuna waxaa meerayaha Venus loo diri doonaa markab bani aadam uu saaran yahay. sanadka 2043 dhaqaalaha dunida aad ayuu u fiicnaan doonaa, muslimiintuna Yurub ayay maamuli doonaan. sanadka 2046 waxaa la samayn doonaa xubno gacan ku samaysa. xubnaha xanuunsado si fudud ayaa xubin kale booskeedu loogu bedeli doonaa. sanadka 2088 waxaa la arki doonaa cudur degdeg ah 2 daqiiqo gudahooda dadka waayeelka dhigayo. sanadka 2100 waxaa la samayn doonaa energy source cadceed cusuba. sanadka 2123 wadamada yaryarka oo dunida oo dhan ayaa isdagaali doona, wadamada waaweynkuna kor ayay ka daaban doonaan. sanadka 2170 waxaa dhici doonta abaar weligeeda aanan la arkin. sanadka 183 meerayaha Mars wuxuu noqon doonaa awood ka madax bannaan dunida. sanadka 2196 waxaa isku qasmi doona dadka Yurubiyaanka iyo Eeshiyaanka. sanadka 2256 markab isbeyska ka imaanaya ayaa dunida waxa uu keeni doonaa cudur aanan weligiisa la arkin. sanadka 3797 dunida ayaa burburi doonta sida ay sheegtay Baba Vanga. iyo waxa ay raacsiisay macluumaad badan. Baba Vanga sidoo kale waxa ay qabtaa 5000 marka la maray iyo xoogaha in koonka oo dhan uu burburi doono. Baba Vanga asal ahaan waxa ay ka soo jeedaa Bulgaria markii ay 13 sano jir ahaydna iyada oo socotay webi dhinaciisa waxa indhaha uga dhacay ayaa la sheegaa biiqda cirka. sidaasina Baba Vanga iyada oo suuxsan ayaa la soo qaaday, nolosheeduna intaa wixii ka dambeeyay waxa ay ahayd qof indhool ah. dadkuse waxa ay sheegaan in awoodo qaas ah ay lahayd ayna saadaalin jirtay arrimaha mustaqbalka dhici doona. Baba Vanga dadka qaar waxay u arkaan shaydaanka ugu weyn ee dunida, halka qaarka kalena ay u arkaan qof sharfan oo qaas ku ah dunida. si kastoo yahaata diinta islaamku waxay qabtaa sixirka inuu jiro, balse cilmul ghaybku qofna inuusan ogaan karin ayay diintu sheegtaa. qofuu ilaahay ogeysiyey mooye. waxaa sidoo kale ay diintu inaga mamnuucaysaa inaan rumaysano hadallada kaahiniinta. si kastoo yahaata muuqaalkani waxaan idinkugu soo gudbinay inaad ka warqabtaan oo keliya akhbaaraadka caalamka, diiniyanna ma banaana rumaynta saaxiriinta. muuqaalada noocan oo kale haddii aad ka hesho fadlan kanaalkeena subscribe saar si aad u daawato muuqaalada kale ee shaashada kaaga muuqdana midkii ku cajabgeliyo waa daawan kartaa. mahadsanid.